ciidamada ammaanka ee dalka ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyagoona markaa ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi maleeshiyaad ka tirsan argagixisada shabaabka kuwaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u maleegayeen qaraxyo iyo waliba falal argagixisanimo warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Sugaal Macalin Maxamuud howlgalkan oo xalay laga sameeyay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan ayaa waxa si gaar ah u fulinayay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo ku socday goobo si gaar ah bartilmaameedku u ahaa oo ay ku dhumaalaysanayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo goobo kale oo ayagana lagu tuhmayay inay ugu keedsanaayeen walxo amniga caasimadda iyo shacabka ku dhaqan ay doonayeen inay nabadgelyadooda ku wiiqaan intii uu socday howlgalka sida gaarka ah loo qorsheeyay ee ay fulinayeen ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ay wehli saraakiil ka socotay laanta dambi baarista CID-da oo xogta lagu duulayay huwaneed ayaa waxa laga soo qabqabtay xaafadihii uu ka socday howlgalku maleeshiyaad la tuhmayo inuu bartilmaameedka howlgalka uu ahaa iyo agabyo kale oo amniga lid ku ah howlgalka oo bilowday abaara 8 fiidnimo ee xalay ayaa si nabadgelyo ah u soo gabagaboobay saqdii dhexe waxaana dadka degan xaafadaha hawsha amniga laga hayay la arkayay ayagoo si nabadgelyo ah u wata isu socodkooda iyo howlahooda shaqo marka laga reebo guryaha sida gaarka ah diiradda u saarneed oo wax dhaqdhaqaaq ah oo howlgallada socda ka madax bannaan laga dhowrayay hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa har iyo habeen u taagan ka hortagga falalka amni darro ee caasimadda ay qorsheynayaan inay ku dhantaalaan nabadgelyada taalla maleeshiyaadka kooxda al-shabaab Sugaal Macalin Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho.